go'ayo waxaan ku yiri waxaad moodaan laga dirayba lama ogolaba inaan hadlo ilaahay qadartiisa marka waxaan idin sheegay Soomaaliya horta iga go'ay sheekadii baan waday anigu farmaajo iyo qayraad baan u taageeraa hees baan hadda ka hortiriyay waxaan idhi markii la doortay aad baan ugu faraxsanaa labada nin waan aad baan u taageeraa waan ku farxaa qayre iyo ninka la dhaho iyo farmaajo waan ku farxaa anigu qabiil ahaan kuma taageerayo iga kala go'ay qabiil ahaan kuma taageerayo waxaan ku taageerayaa Soomaalinimo riyada wadankeena ayaan arkaa riyada wadankeena iyo dadkeena inay nimankaas niman fiican yihiin oo doonayaan wadankeena wax u qabtaan laakiin ciidi lama shaqeynayso cid la shaqeynaysa ma hayaan maadaama ay dawlad tahayna maadaama aniguna dadka la laayo oo dagaal dhacaan ma rabo Soomaad garan 30 sano ay Soomaali dagaal ku jirtay 30 sano ayay Soomaali dagaal ku jirtay oo dagaal hadii wax ku imanayaan bar hore wax ku iman lahaayeen laakiin waxa meesha yaala walaalayaal dadku inay horta aqli yeeshaan dawlad maxaa lagu noqdaa dawlad waxa lagu noqdaa kala dambeyn waxa lagu noqdaa ismaqal waxa lagu noqdaa dawlad kala dambeyn iyo ismaqal baa lagu noqdaa iyo la wada shaqayn labadii nin waa la doortay sida runtii waa dadku si fiican bay u doorteen waana very good laakiin waxa weeye labadii nin markii la doortay labada nin markii la doortay qayro iyo ninka la dhaho farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo mudane Xasan Qayre markii la doontay la arkay laba nin oo shaqeynaya inay yihiin faragelin badan baa ayaa ku socota Soomaad garan waxa weeyaan aboowe adiga haddaad Soomaali tahay meesha doonto ka soo jeed qolada doonto sheego qabiilka doonto sheego calanka doona hayso dalkaaga waxaan ku sheegay in lagu socdo dalkaaga waxa lagu socdaa in laga qaado dalkaaga waxa la rabaa in laga guuriyo oo laga tirtiro sidii lagu tirtiri lahaa dalkaaga sidii adiga aan mar walba adiga waxa kugu socoto wax la dhaho cunaqabatayn laakiin ma fahmaysid adigu cunaqabataynta kugu socotaa waxa weeyaan dawladii baa cunaqabatayn laga saaray dawladii iyo jiritaankii ayaa cunaqabatayn ka saarantay ma ogid adigu you cannot ma ogid adigu you don't know ma ogid cunaqabatayn baa Soomaaliya saaran xagga dawladda micnaha waxa laga saaray in dawladda yeelato in dadkaagu ma garanaysaa wax wada qabsado in dadkaagu heshiiyo mushkiladda ugu weyn dadka Soomaaliyeed haysata cunaqabatayn baa saaran xagga dawladii ayaa laga saaray cunaqabatayn you don't want ma la rabo dalka Soomaaliya inuu dad noqdo waxa la oogay dadka Soomaaliyeed haday one day wada tashadaan inay adduunka qabsanayaan ayaa la oogay walaal hadii aanad taa dareensanayn hadda dareen anaa ku sheegaya in cunaqabatayn ay weyne ku saaran tahay inay ku saaran tahay cunaqabatayntii adduunka ugu weyneed xagga dawladnimada inay ku saarantahay saa ogow waxa weeye qayre iyo ninka la dhaho farmaajo waxay doonayaan wadanku inuu dawlad noqdo inuu dadku wax qabsadaan inay ma garanaysaa ay dadku dad jiro noqdaan waxa weeyaan aqli baydaan lahayn weydaan fikiraynin war meeshan Soomaaliya ha ku mashquulin Soomaaliya inside ha ku mashquulin war meel fog wax ka eeg war aqoonyahan noqo war waxaan ku meel fog wax ka eeg meel fog oo aan Soomaali moodin inuu qof Soomaali cadowgaaga yahay qof Soomaali cadowgaaga maaha dad baa waxay ku leeyihiin qof Soomaali cadow noqonayo oo hadaa adinku cadow isu noqotaan heede ma jiraynaa Soomaaliyeey ma jiraynaa ma 30 sano inuu ku jiraynaa Soomaali baa ku cadowa 30 sano miyaynu walaal ku jiraynaa Soomaali baa ku cadowa no waxa weeye 30 sano inaad ku jirto Soomaali baa ku cadowa waa very bad waxa weeyaan aqli baydaan lahayn fikira anigu nimanka aan dad Soomaali caadi ah waqaano oo Soomaaliyadnimada jecel waa nimanka kilalka shanaad nimanka diga reeraha diga ee Soomaalida ay way jecel yihiin Soomaalinimada waa dadkaas baa rabad Soomaalinimo dhab ah
laakiin inteena kale Soomaaliya gudaheeda inagiba waxaynu soo haysanay inaan cadow sunahay no good ma aha qof Soomaaliya kuma noqon karo cadow waa walaalka laakiin waxba khaldan waxa khaldan heede waxa weeye waxa inaga maqan awoodi dawladnimada marka walaalayaal ma 3 sano inuu ku jireynaa kana ku cadowa kan iska ilaali ka haw tegin iska ilaali Soomaaliya waxa la doonay saas loo kala furfuray saas anigu waxaan oran karaa siyaasadii siyaad bare ee hore ee dawladii hore waxa lagu kala furfuray mar horena waan sheegay maskax bilaadanimo siyaasad bilaadanimo maskax balino adeegsadii still law inuu socotay laakiin you cannot adigu you can no understand ma fahansinad adigu okay ma malaynaysaa wadankeeno sidii u nabada heede wadankeeno oo sidii u nabada aynu sidii dawladnimo u leenahay oo aynu isfahanno aynu wax wada qabsanayno in maanta leeno soo dhoofi lahaa dadkeenu may taariibeen caruureena dumarkeenu dawladaan ma dhinteen caruureena yar bilaa school ma noqdeen dadkeenu qaxoonti ma noqdeen meel walba jooga adduunka sida adduunka dawladaha kale ayaynu noqon lahayn waar ku taamila qaata derisyadeenna waar ma waxaad aragteen cid kale ba adigoon aadin Nairobi Ethiopia iyo Nairobi bal ku taamila qaado waa deriskeeni waar dawlad ma leeyihiin waar iyagu mucaaraday leeyihiin waar dawlad ma leeyihiin dawladoodu ma dhisantay maxaa inaga ina baabi'iyay maxaa inaga inba meel ku gooyay maxaa Soomaali baabi'iyay maxaa Soomaali silciyay maxaa dawlad la'aanta 3 sano ugu jiraan waar ka kacaabiin wasi ka kaca raadiye dawlad waar dawlad raadsada ka kaca Soomaaliye waar inta adigu isaysataan waa maqlayseen ninka madaxweynaha maxay Itoobiya haysta wuxuu yiri aan kelmadihiisa aan dhageystay taalo yiri nimankii 77 kii dagaalamay heede taalo yiri ha loo dhiso waar miyadan fakaraynin waar miyadan aqli lahayn waar miyadan xisaabtamaynin waar ma 3 sano xabad isu haysataan ka kacabaan ku dhaabiin wasi eedu dhash ee bilaadiga waa ragga Soomaaliyeed oo ka kaca waar calankan iyo dalkan dad baa soo dhintay waa rag baa xabaal ugu jira waa rag baa madhay waa rag baa caruurahoodu ku waayay waar dumar baa dahabkoodii iibiyay waar maxaa adikayda ka khaldan waar maxaa Soomaaliyeed ka khaldan waar ka kaca waar la shaqeeya nimankaas dawlad bay doonayaan waar farmaajo qayr la shaqeeya war wallahi oo billahi oo tallahi dawlad bay rabaan wallahi oo billahi oo tallahi dawlad bay rabaan rasmiyan mankaas ilaakiin anigu ma rabo Soomaaliya in dagaal ka dhaco waar xabad joojin la sameeyo waar odayaashu ha kacaan waar walba Soomaali odayaal baa u talin jiray waar geed hoostiba looga talin jiray waar rag bay ahaan jireen waar weligeed geed hoosteed baa looga talin jiray waar odayaashu maxaa ku dhacay odayaasha Soomaaliyeed haata meel kastaba oo Soomaali joogto odayaashu ha kacaan oday beeladid awalba dadka maxay tahay hagaajin jira ha kacaan waxa weeye dadka Soomaaliyeed oo dawlad dhista you don't know people ma ku garanayaan dadku waxa doonto sheego qabiilka doono ka soo jeed halka doonto ka kaalay 19 calan baad samaysateen waxaan ku dhig 19 madaxweynaha rabtaan 19 calan baad samaysateen ma soconayso waxaana u soconayn baan idin sheegay adduunku wuxuu inoo yaqaanaa Soomaali adduunku wuxuu inoo yaqaanaa hal qoomiyeed adduunku wuxuu inoo yaqaanaa hal wadan adduunku wuxuu inoo yaqaanaa dad one nationality one religion one culture bay inoo yaqaaneen dadku ma fahantiin why isu haysataan why 24 hours one ma 3 sano inuu aragna dad dagaal ku jira war miyaydaan ku taamila qaadanaynin dawladii siyaad bare iyo dawladii Itoobiya isku mar bay dhaceen madaxweynaha kaliya iska bedeleen madaxweynaha oo quraba iska bedeleen gawdhe wallahi 2003 ayaan Itoobiya markaan imi baan saaw eega ma sha Allah horta waa wadan aynu ku dhexnoolay oo waynu ku faraxsanay wanaagooda laakiin waxaan idin sheegay dad aqli badan oo fariida weeyaan dad inaga aqli badan weeyaan Soomaaliyeed idinka isu fiican Soomaaliyeed idinka isu cadowa Soomaaliyeed idinka la iskiin tusay Soomaaliyeed ka kaca war Soomaalinimo wax ku raadi war qabiil waxba ku raadin war dadkaaga badbaadi war wadalkaaga badbaadi war badaada lagu socdaa oo waxaan ku dhidheemantaada lagu socdaa oo buurahaaga lagu socdaa 19 qabiil baa lagu sameeyay 19 calan baa lagu sameeyay 19 madaxweyne lagu sameeyay